السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي يا قدر حاس ونسن وأخلاق له إنه جرسو إنك كانوا دبعات غلبسن وحين يسكو قد أجرين سيدا عنتذا أكرسو مر البو عنتذا ددمي وحب الله بجرين قيلو وحين نديه جرين عنتذا ددن كيدو ما في عنو وحين وبا أنت عصبو إي وحيابه دناني عنتذا مالمو وي قد بين نينكنا وحوكنا وقدقان كحاس كيسا وحانو كوهن دادا إنو لقرسنا يهديسن دبع كيدا بدلين ويورو عديسي waxayna ku tiri mararka qaar waxaa laga yaabaa inay kuwa ku jecel kuula dhaqmaan si aadan fahmi karin laakiin xaqiiqo ahaan ay yihiin dad aad kugu dhimranayo aadna kuu jecel kadib ayay u sheegtay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam yuusan u caruurin nin muumin ah gabar muuminad ah haddii dabeecadu ku kahado mid kale ayuu raalli uga noqdaa xaaladeeda ayay isaga sii jirtay wuxuuna u sheegay inuu guursan rabo waxaana soo qaatay fustaanka caruusadda wuxuuna suray qayb ka mid ah qolkiisa si ay u marto xeeladiisa maalinkii uu sheegay inuu dhacayo arooskiisa beenta ah ayay gashay qolkiisa waxayna fustaanka gelisay warqad ay kula talinayso xaaskiisa cusub galabkii ayuuna soo galay qolkiisa asagoo rabo inuu u celiyo fustaanka dadkiiska lahaa wuxuu arkay warqadii uu aqriyay waxaana ku qorneyd walaashay waxaan kuu sheegayaa sababta uu kuu guursanayo ninkayga inay tahay in aanan raashinka ku darin cusbo iyo waxyaabaha kale ee dhanaaniyo cuntada ninkaygu wuu xanuunsan yahay ismana ogo sababta aan cusbo ugu darin cuntadiisa waan ka qariyay maxaa yeelay waxaan ka baqay inuu naftiisa halis geliyo waxaan kaa rajeynayaa cusbo inaadan ugu darin cuntadiisa maxaa yeelay aad ayay u dhibaysaa markii uu aqriyay uu soo orday xaaskiisa wuuna u cudur daartay aad ayuuna ugu farxay jaceylka ay u qabto iyo sida ay ugu cabsanayso ay naftiisana u badbaadinayso fadlan haddaa ka hesheen qisadan like saara ku soo biiro subscribe dhaha janaalkeena Bishaar Action aad ayaad u mahadsantihiin.